سؤالها يسوي ديسين ما شاء الله ما انتوا إذا كذا جواب دونا هاي القلي مسعاتين كرتا بشي ميقكي لا يقدعي كرتا جروبka sameynay oo gabdhaha u sameeyay maxaa ku qabatiin waxaan ku qaban insha Allah waa idin soo wadaagi doona dhowr su'aalooda meeshan aan maxaa ahay ku jiraan marka waxaan rabaa inaan soo koobo videoga dhameysan bilow ilaa dhamaad su'aalaha ay soo weydiiseen dhamaantooda email-ha iga heli kartiin insha Allah waa idin kaga soo jawaaba group waxa u sameynay iyo faa'iidooyinkiisa iyo maxaa kaleento jimicsigeygii maanta aniga soo sameeyay iyo quraacdeydii iyo qadadeydii wixii isku caateena cuntadii oo healthiga ahayd oo weight loss ka ku sameeyeen insha Allah maxaa ahay ayadan video ku jirto dhameysta bilow ilaa dhamaad su'aalaha jawaabahoodan dhageyso cunooyinka saak waxa ku soo quraacday iyo waxa ku qadeeyay iyo waxa soo hore cabay isaw caatay insha Allah videoga daawasho wacan bilow ilaa dhamaad soo dhawaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalay qaaliga ah سيتين حالدين عفمات كينا ميل بعدون كجوكتان خارجينا إنا إيقو عفمات قبتان وقت والبعيد انتهي حلو والبعيد انتهي وحا إذن لايه مالي وناكسن أنا هاد مالنا إيتها إن شاء الله وحا نجعل فيديو إنو إذن سوغاري دونو إنتا صداقو قدبو أنا وإذن عفمات قبا إذن كان سداسي إسكفي أنا إذن رجينا وأنا إذن كغمات علينا سيدا وناكسن أمرو البعيلة سعوتان سيدا الفيديو إذا أو شير قرينيسين sida subscribe-ka ay ku saarteen dhammaan waa idinkaga mahadcelina waxa idin leeyahay jazaakumullahu khayran inta daawata inta si share gareysay inta subscribe-ka ku dartay inta fikradooda ka soo dhiibatay dhammaantiin waxa idin leeyahay ilaahay idin wada xafido waana mahadsantihiin ma sha Allah maanta waxa idin wada waaye videoga waa video full waa insha Allah bilow ilaa dhamaad fiirso waana ka heli doontaa dhiirigelinta iyo cuntooyinka inta way isugu jiraan insha Allah iyo groupka waxyaabaha ku heeno iyo faa'iidooyinkiisa insha Allah ay idin la wadaagi doona inta hadda daawanayso oo group ku jirto way ku jirtaa faa'iidooyinkiisana way ka warqabtaa inta aanu ku jirin muxuu ahay daneynaysan insha Allah videogan dhameystaa doo Ilaahay idmo marka waxaan rabaa 5 daqiiqo ka badan inaan ku qaato mar rabo qaybta hadalka because quraacda iyo qadada 5 daqiiqo kale insha Allah marka waxaan rabaa inaan idin soo koobo su'aalaha ay soo weydiiseen su'aalaha meel ku soo qorqoray insha Allah marka meesha ka soo aqrina hadoo Ilaahay idmo su'aasha ugu horeysa waxay tahay asxaabay aan noqdo koola ay soo galay mis caateen karaa anigoo lay qalay yes was caateen karta adoo lagu qalay anigaan hadda ku hortaagan oo kula hadlaya lay qalay 4 mar aan lay qalay 4 mar aan lay qalay ma fahanteen iscaateynkeygii koowaad waxa iscaateynta bilaabay wiilkeyga hore oo 2 sano bilooyin oo ka dhiman tahay haddana kan waxa bilaabaa wiilkeyga labaad oo sanad jiro waana nuujinaa hooyada nuujinaysan sidoo kaleento ayadana su'aal laga soo weydiiyay waa iscaateyn kartaa adoo qalan oo yaani ilmo lagu qalay aniga baad iscaateena soo maahan natiijada horena waa idin tusay haddana natiijada insha Allah way soo socotaa haduu Ilaahay idmo waa iscaateyn kartaa okay su'aashaas waa ka jawaabay mis caateyn karaa dhahday gabadhan anigoo uur leh may mis caateyn kartid aniga ahaan waa mis caateyn kartid caafimaad ahaan mis caateyn kartid maxaa yeelay cunuga calooshaada ku jiro wuxuu u baahan yahay nafaqo u baahan yahay inuu cunuga meesha ku koro oo ku weynaado oo cunto oo helo u baahan yahay ma sameyn kartid marka waxyaabo la isku caateeyo oo badan la isticmaalo ma isticmaali kartid insha Allah ma iscaateyn kartid kadib marka dhashid waa iscaateyn kartaa tan kala waxay tahay waxa su'aal qabtiin insha Allah qaybta comment-ga ay ugu soo reebi kartiin mis caateyn karaa anigoo nuujinaya tir gabadhan yes waa iscaateyn kartaa adoo nuujinaya aniga hadda kula hadlayaba nuujinaya wiilkeyga sanad kaliya jira waan iscaateena kaliya waxa ka fogaana waxyaabaha asaga dhib u keeni karo oo markaas oo iga nuuga hadda cuntada aan bedelay oo jimicsi aan sameynayo waxa yaani ma ka dhibaayo bariiska iyo baastada iyo saliid cadeed iyo sokorta iska dhaaf intaas kaliya leh insha Allah wixii faahfaahin insha Allah oo dheeraad hadii aragtiin oo isu sheegi kartiin video full waa ka soo sameynaa doo Ilaahay yiraahdo meeqa kiila iga dhaceysay tir gabadhan bishi meeqa kiila iga dhaceysay tir okay bishi inta kiilo ka dhaceysaa rabtaa hadda matalan waa caylanta caylkan ku saaran bil ilaa 2 bil ma ku soo karo waa may muddo badan soo waday muddo badan muxuu ahaa caylkan oo ku soo socday sanooyin oo korkaaga saarna oo tartiib ku soo koray marka saas darteeda caylkana tartiib oo kaaga dhaca ma ahan wax bil gudaheeda muxuu ahaa kulli oo iga wada dhaca bishi laga yaabo
in kiilaad ay kaa dhacaan, laga yaabo kiili inay kaa dhacdo, laga yaabo inuu waxa kaa dhicin sidii miisaanka hore u kortay bisha markay dhamaato markaa kortidna inuu sidiisa ahaado. laakiinse waxaa ku dareemi kartaa markaas waxay tahay dharkii aad gashan jirta aad gashanaysaa, waxaad dareemaysaa dharkii inay kugu weynaadeen oo waasac adigana muxuu ahay iyo fudfudeed iyo waxaas aad dareemaysid insha allah. waqtiyada cashada la cuno waqtiyada cashada la cuno haddaaba casheynayso waxaa fiican 12 galabnimo ama 6 galabnimo, wixii ka dambeeya inaa afkaaga wax saarin, waxaa cunaysay ahaato wax fruitis ama salaati waxyaabo noocyadaas oo fudfudud. intaas wixii ka dambeeya inaadan wax cunin ilaa iyo waqtiga hurdada. jimicsiga daruuri miya? jimicsiga daruuri waaye because jirka faadka ku jiro iyo sokorta ku jiro iyo cusbada ku jirto oo maxay ahayd aan loo baahnayn, waxaa la rabaa dhidid ahaan in banaanka loogu soo bixiyo. dhididkana see loogu soo bixin karaa waa inaad jimicsi samaysid, ama banaanka ha ahaato ama gudaha ha ahaato ama jim meesha rabtid ku samee, kaliya waa inaad dhaqdhaqaaq samaysaa. okay, groupka maxaa u qabatay ayaa leedahay. groupka waxaa u qabtaa waxay tahay gabdhaha aniga sideedoo kale oo baahiyaha badan qabo ee raba inay iscaateeyaan oo caylkii yacni qatyaanka taagan oo dhiirigelin aan haysan, inaad dhiirigelin isku noqono oo cuntooyinkeena meesha aan ku wadaagno, jimicsiyadeena meesha aan ku wadaagno, oo afkaarteena iyo fikradeena meesha aan ku wadaagno, oo qof walba qofta kale inay ka faa'iideysato oo meesha aan ku walaaloona darteeda aan groupka u samaysanay. maasha allah waana salaama haddii ay fiirsanayaan hadda gabdhaha groupka ku jiro, dhammaantiin waxaa idin leeyahay goolkiinan waa gaaraysiin, horumar wacan, dadaala insha allah saa u dadaaleyno. samarka iyo ciidda insha allah isbedel dhab waa la imaan doonaa hadduu ilaahay idmo. okay, maxay tahay meeqa cunugaa lagugu qalay? su-aashaas hore horta uga soo jawaabay. waxaa laygu qalay aniga ilmo waxaa laygu qalay afaraa laygu qalay. labada isku xigta waxay kala weyn yihiin oo waaweynka ah sanad iyo 3 bilooda u dhaxaysaa, da-da koowaad iyo da-da labaad. da-da labaad iyo da-da saddexaad waxaa u dhaxaysaa 4 sano u dhaxaysaa. markii aan labadii ugu horeysay ee yacni ay isku kii xigsameen waxaa markaas yacni go-aansaday inaa kala dheereeyo oo wixiina qaliin ay noqoto 2 mar qaliin igu dhacay. da-da labaad iyo da-da saddexaad waxaa u dhaxaysa 4 sano ama 4 years u dhaxaysa. da-da saddexaad iyo da-da afraadna waxaa u dhaxeeya 3 sano iyo 7 bilood u dhaxaysa labada wiilna insha allah. wiilka hadda igu yarna wuxuu jiraa sanad oo jiraa oo hadda iscaateynta aan go-aansaday inaan bilaabo. waxaan jeclaa gabdho badan inay dhiirigelin u noqon doonto oo ka cabsanayay inay jimicsi sameeyaan. jimicsigana waa kaasaasa ujeedin asxaabay saasaa loo jimicsanaa. waxyaabaha caloosha markaas exerciseyada caloosha oo kala sameynaya gabdho waxaa jira garbaha oo kaleento, garbaha sidoo kaleento aniga garbkeyga waa kaasaa ujeedin oo maleynaa xoogaa yar adiga waa iska buurinahay. mushkilada waxay tahay adduunyada anaga meeshan laga haystaa waxay tahay waa calooshana waa cudur, ma fahantay? calooshana waa cudur, marka caloosha sida aan ku dili lahayna insha allah waa ku dadaaleyna hadduu ilaahay idmo. caloosha sidee loo jaraa haddaba ka hadlaayay ahayd. caloosha waxaa loo jari karaa waxay tahay exerciseka caloosha inaad badisid iyo cuntooyinka ka dheeraada idin dhahay ka dheeraatiin bedelkoodana cuntooyinkan ku bedelatiin insha allah. haddii lagama maarmaan ay noqoto ama loo xiisoo kaleentane in bishii oo kale hal mar waxa ka cuntid, laakiinse waxa u badsanaysay ahaadaan qudaarta iyo fruitka. qudaarta waa inaa u badsataa insha allah. marka waxaa jeclaa videogeena intaas kusoo kookooba su-aalihiina kulli ma kasoo wada jawaab, laakiinse qaar kamid soo qortay aan kasoo jawaabay, iyo waxaa isku soo daray quraacdiinii iyo qadadiina insha allah iyo jimicsigiina hadduu ilaahay idmo. dhiirigelintiina aad iyo aad ay muhiim iigu tahay, aad iyo aadaan ugu farxaa, aad iyo aadayna energy ii siinaysaa. waana mahadsantii sida wanaagsan ay ila socotaan iyo meel walba igala socotaan. waxaa idin leeyahay maalinka idin wacnaado, habeenka idin wacnaado, waa mahadsantihiin. haddaa igu cusubtahay soo dhawaabo, naga mid noqo gruupka ya maxaa u bixinaa waa gruupka xitaa ya gruupka walaalaha ku dhiban caylka saasa kule aan u bixi lahaa. maasha allah waxaa idin leeyahay nagu soo biir insha allah. maalin walbana video cusub iyo jimicsi cusub iyo quraac cusub maalin walba waa bedelinayna hadduu ilaahay idmo. markaa moogaanin mar walba subscribe ku ahaado, channel ku rukuman ku ahaado hadduu ilaahay idmo. inta videoga mid la mid ah ku kulmi doon waxaa idinkaga sii taga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalay qaaliga ah meel walba adduunka joogtaan. saa ujeediin quraacdeena habeysanaynaa, trainingeena waa kaasaa. markaa biyeena kululaa iyo liinta cabna kadib jimicsiyaa sameynaynaa insha allah. waa liin dhanaan iyo biyo kulul. aniga cunug yaraa weli nuujinaa, sanjabiilka ma cabi karo. marka qofka ilmo nuujinaynin wuu cabi karaa sanjabiilka.
intan saa ujeedin chia seed waaye biyo kusoo radiyey waa hal qaando weyn biyaa ku radiyey markuu radayna saasoo noqday markuu u batay laba qaanda uga darsaday asagana biyo caadi ku darsanaa iyo liin dhanaan biyahayga cabaya waa inta kalena caagada ku shubanaa saasa uga cabaa insha Allah marka quraacdan yarta insha Allah idin la share gareena oo healthy ah wax oo maxay aheeto baruuri waxaas yani muku keenayso waa healthy waaye insha Allah rootigana saa quraacana mar walba quraacdina iska bedeshada qurux badan roodidaas oo roodis mariska waxaas ka madmado waa chia seed flax seed waaye maasha Allah aad iyo aad caloosha ugu fiican tahay iyo laba xabo ukun waaye waa soo koobay casho yani waa ka dhigan kartaa hadii iskorsaarka iyo xabad ukun cunto habeenka cashadaada okay waaye quraacdina sidoo kale waa okay marka ani baby yarna waa nuujinaa marka miisaankana waa la dagaala insha Allah marka waxaan jecelahay walaalayga inay ka faa'iideystaan intana qajaar iyo yaanyo waxa ku soo habeystaa ujeedin iyo xabad farmaajada lama huraan waaye in markaas la isticmaalo si la faheeni oo awood u yeeshaan insha Allah xagane simbal ahaan u soo qaatay casho ahaan waa ka dhigan kartaa xabad ukun waa soo jarjaray iyo qajaar iyo yaanyo waaye iyo rootiga iskorsaarka ku cuni kartaa hadaa rabtin sidaan kala u sameysan kartaa insha Allah rootigana noocaan waaye hadda aan sameysanay qamadiyo ka sameysan yahay burka madow maasha Allah aad iyo aad u fiican yahay waa kaasa biyaheeni chia seedka iyo biyaheeni kala kululaa haddana qaybta qadada insha Allah u gudbeynaa maasha Allah walaalay qaaliga qadayna maanta waxa ka sameysanay digirtaas ujeedin intaan meesha taalo digirtan waa idin tusaa aad iyo aad ay adag tahay hadda way bisasheesa ujeedin laakiin si sira ku hoostuugan samahan xalayta biyo la dhigay waa hal bakeeri waaye biyaan la dhigay way badatay waa kana saas u eg tahay sida dhagxaantii oo kale waaye ma bislaanaysa iyo waa in habeenkii biyo la dhigtaa maalinkii oo dhan inay dabka iska saarnaato waa insha Allah marka qadeen insha Allah intaan ka dhiganeena wax xilib uma baahnin wax ukun uma baahnin wala fish ama chicken digirtaas maasha Allah intaba ayada maxay aheeto booskooda galaysa insha Allah haduu Ilaahay idmo haddana baaquligaas soo qaatay waxaan rabaa inaan isku dardaro oo dhanag yar oo yeel maadaama biyo la ku soo kariyay biyo bas ku kariyay wax kale ku karin asxaabe marka waxaa jecelahay videoga inta yar oo muhiimka ah inaan idinka soo duubo oo waqtigan idinku dheeraanin su'aaliyo ay soo weydiiseen dhan inaan ku soo wada sharxaa rabaa videoga insha Allah bilaaw ilaa ay dhamaad fiirso in dhamaan su'aalooyinka ay soo weydiiseen hooyo nuujinayso miscaateen kartaa hooyo uur la miscaateen kartaa intii oo dhan intan waxa ku soo yareystay basal jab basal xabad yaanyo iyo qajaar waxa ku soo yareystay intaas jirkaagu u baahan yahay qudaarta oo dhan wax ma ka dhibeyso iyo fruutadaada insha Allah badso haduu Ilaahay idmo saxankan kala ujeedin asalaata si yar ayadan soo jara ku soo shubay marka waa kaasa bakeerigaasna waxa ay ku jiraa kan filfil waa ku soo dara bakeerigan waxa ay ku jira jeex liin dhanaane waxa ku sameysanaynaa biyeena caadiga cabitaanka ah ee chia seedka iyo liin dhanaanta chia seedka wuxuu ka saacidaa baahi badan ku keenayo miisaankan waa lagu loos gareeyaa asagana haddana jeex liin dhanaan ku soo meertay saa ujeedin dhanaan yar oo maasha Allah kaaliska ariga ku siinaysa haddana waxa ku soo darsado wax yariis oo saliid olive waaye qofka haysan saliid olive wuxuu ku darsanaa saliid macsaro haddana waxa ku soo darsaday wax yar oo cusbo waaye ma badna cusbada maasha Allah haddana waxa sameynaa waa isku qaseynaa wixii oo dhan si ay dhexdiisa galaan shaqo badan ma ka rabo hool badan ma ka rabto maasha Allah waa kana calooshaadana maasha Allah aad ugu dhargeysaa weydkana waa muxuu ahaay oo kulus gareyn kartaa waana ka helaysaa insha Allah awood haduu Ilaahay idmo marka waa kaasa haddana waxa sameysanaynaa biyi chia seedkan quraacda waa ka idin tusaa biyo ku soo radiyay waa qaandadii kaliya waa intaan marba kiisa ka soo qaadanaa mar walba biyo u baahdo oo ku soo shubanaa macal chia seedka waa lacaba asxaabe ma ahan in miraha la daadinayo miraha waa loo baahan yahay xitaa dadka markay cuntada habeenkii ay cunaan oo kala hadee ay cabaan chia seedka aad iyo aad u saacidaa maasha Allah soo jeedin quruxa ku dhahay qadadeena inta jika kale lahayd adduunyada dhan asku maxay aheedo waqti ka qaadan lahaa sidaan fudud ka waran
ما شاء الله وانا cunteeltay إن شاء الله هدا كيشان subscribe comment like share هدا igu cusubtaa soo dhawaa hada hore ila joogi jirtay soo dhawaa